Soomaaliya waxay noo taqaanaa dad gob ah inaan dad dhul baaxad leh inaan dad bad iyo berri iyo beer iyo webi isku haysta inaan dad la gumaysan karo inaanu kaanan ahayn laakiin maanta waxaan Soomaaliya dhan faraha la soo galay cadow meel uu ka tirsan yahay iyo meel uu ka yimid aan la aqoon xoolahaaga raba hantidaada raba gurigaaga raba ridaada raba gabartaada raba naagtaada raba maalkaaga raba isgool aan ku dhisay caafimaad ku siiyay baawur ku siiyay meelna aan ku geeyay cadawgaas waa shabaab iyo qawaariidtan wixii la socdo haddoo walaalkaya iyo haddoo ajnabi yahana isku mid waa hal mid oo ka mid ahaay ma jiro qofkan walaalkay waa faraha laga qaad ma dhahaya ig walay wada siman yihiin inay ku dhacaan xoolahaaga cunaan waxna aysan ku siin weligeed lama sheegin dadka deegaanadan ku nool oo gunnimo ku noolada lama sheegin weligeed mana dhacayso mana dhici jirin waxaan idin ka codsanaa maanta sida uu agaasimuhu u sheegay dhulkan wuxuu ka mid yahay dhulka aad ku nooshiin waa dhulka aad ku tilmaamantihiin waa dhulka aad sharafta iyo karaamada aad ku leedihiin waa dhulka oo ka dhashay madaxweynayaasha Soomaaliya dadka ugu badan waxaana difaaca dad naga horreeyay ee dhulku meesha iskaagama la oo nabadow yahay inta la dhahlay iskama seexanina dad naga mid ah u soo dhintay oo ku baaba'ay oo odayaala oo hantidooda xoolahooda ku waayay waxaan idinka codsanaa dhalinyaro maanta waxay taagan tahay lab inaad dullinimo ku noolaato oo cadawga inta foorarsato wuxuu raba ka samaysto iyo inaad iska dhigto labadaas u taagan midda aan rabnaa waxay tahay marka dullinimo ku noolaamayna mana ku noolaa jirin inaan iska qabana cadawga oo iska difaacno oo iska dhicin xoolaheena iyo dhulkeena iyo hantideena iyo maalkeena inaan ka cesho dadka ka ilaahayna adinka waa dhulkan annaga iska leh mana ka akhrisanayno ilaahay idankiis dadkan hubka wato dhalinyarada u dhashay ashabaab oo aduguna meeshaad ka timi iska aad dhulkan dadkiisa u kacay ayaga iska leh mana ka yeelaya inaad dulaysato maanta ka bacdi annaguna waxaan u diyaar garoobaynaa inaan dagaalkaas garab idinku siino idin garab taagaanano 24 saacna wixii aan heli karno aan ka taakuleen aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaada madaxda sharafta leh iyo dadka xamar ka yimid iyo agaasimaha iyo inta dhan oo martiyaho xamar nooga timina waa soo dhaweynaa abaabulkiina iyo shaqada aad nala qabateen anigu bisha Oktoobar 2 2022 aan cadala imiday ilaa iyo haddana intaan taagan ilaa iyo maalinkaas hal maalin dib uma noqon waxaan idinka rabaa meeshaan inaan ka sii wadno insha Allah